waxaa maanta magaalada Muqdisho gaar ahaan dugsiga ugu weyn ee Al-Cimra isugu yimid macallimiinta wax ka dhigta qaybaha kala duwan ee dugsiyada hoose dhexe sare ee Al-Cimra. ujeedka isku imaantinkooda ayaa ahaa sidii si wadajir ah loogu diyaarin lahaa imtixaanaadka laga qaado ardayda wax ka barata qaybaha kala duwan ee dugsiyada hoose dhexe sare ee Al-Cimra oo ku kala yaala degmooyin kala duwan oo magaalada Muqdisho ah iyo gobolka Shabeellaha Hoose. macallimiintan ayaa si wadajir ah u diyaarinayay maadooyinka kala duwan ay dhigaan, waxaana ay ku tilmaameen habkan inuu yahay hab fudud oo ka caawinayo in macallimiintu ay si wadajir ah u diyaariyaan imtixaanaadka halkii macallimiintu ay siyaabo kala duwan oo kali ah ay u soo diyaarin jireen imtixaanaadka ay galaan ardayda kala duwan ee wax ka dhigata dugsiyada hoose dhexe sare ee Al-Cimra. maamulaha guud ee dugsiyada hoose dhexe sare ee Al-Cimra Cabdiraxmaan Cumar Maxamed oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in tani ay ka fududaynayso wax badan oo ku aadan habkii iyo hanaankii loo soo diyaarin jiray imtixaanaadka ay macallimiinta ka qaadaan ardayda wax ka barata dugsiyada hoose dhexe sare ee Al-Cimra. alxamdulillah ilaahay baa mahad iska leh oo maanta noo sahlay inaan halkan ku kulmino dhammaan macallimiinta ka howlgala dugsiyada Al-Cimra Primary and Secondary Schools. inta macallin ka howlgasha dhammaan muasasada uu ka kooban yahay dugsiyada Al-Cimra Primary and Secondary School, iyadoo maanta waliba ujeedkeedu uu yahay sidii imtixaanka nagu soo foolkale ee soo socda oo imtixaanka teramka ah imtixaanka naqliga ah loogu diyaar garoobayo oo macallimiinta u diyaarinayaan imtixaan midaysan oo dhammaan dugsiyadaasi ay ka wada midaysan yihiin. imtixaanada kala duwan waa la soo qaaday, laakiin imtixaankan oo imtixaan centralized ah, imtixaan midaysan, waa markii ugu horeysay oo dugsiyada Al-Cimra hal imtixaan oo midaysan loo diyaariyo. xarun kastaba imtixaankeeda marka hore gaar ayuu ahaan jiray iyadoo maamulku uu kormeerayo, laakiin waa maanta waa maalintii ugu horeysay oo imtixaan midaysan loo diyaariyo. macallin walba markaas imtixaan gaar ah oo isaga uu soo diyaariyay ayuu ardayda ka qaadi jiray, laakiin hadda 5 macallin ama 6 macallin oo kala duwan oo xarumo kala duwan ka qayb gala oo min hal maado oo isla diyaarinayo waa dareemi kartaa farqi weyn ayay ku kala duwanaanayaan. marka horete hal macallin iyo hal maado ayuu ahaa, laakiin halkii maado ayaa hadda waxaa diyaarinaya 6 macallin 7 macallin ayaa isku fikrad darsanaya oo diyaarinaya. marka wax hal qof uu diyaariyay iyo wax intaasoo macallimiin oo kala duwan ay diyaariyeen waa dareemi kartaa fikir badan oo isku tagay inuu kasoo baxayo imtixaankii hore ka tayo badan oo meel badan laga fiiriyay in lasoo diyaarinayo. halkii maado dugsiyada maadaama faracyadiisu u badan yihiin oo qaybo kala duwan iskuulka uu ka kooban yahay magaalada Muqdisho uu ku yaalo, halkii maado macallimiinta dhigo tusaale ahaan oo kale maadada xisaabta oo kale dhowr macallin oo ka howlgasha xarumaha kala duwan ayaa fariisanaya. waxaa laga rabaa hal imtixaan inay soo diyaariyaan. kama adka, waayo macallin kasta oo wax u dhiga oo qayb kasta wax ka dhiga isaga ayaa matala ardayda matala wixii uu soo dhigeen isaga ayaa ogsoon. mideeda kaleete manhajkuna waa hal manhaj oo hal buug ayaa la wada dhigaa, marka kama adkaan karo imtixaanaadka hore kama adkaan karo inuu ka tayo badan yahay oo fahanka ardayga uu ku salaysan yahay mooyaane kama adkaan karo. mideeda kaleete imtixaanka sidiisaba imtixaan markii la qaadayo ardayga waxaa laga rabaa galaaska in inta badan ardayga 50% ardayga uu fahmi karo imtixaankaas uu fahmi karo, kan ugu liito uu fahmi karo. imtixaanka sidoo kale ay ku jiri karto 75% ardayda qaar inay fahmi karaan. ardayda maskaxdooda iyo waxbarashada ku tayeysan oo ku dadaalana iyaga naftirkooda in imtixaan u yahay oo imtixaan dhinacyo badan taaban karo oo aan xagga sare oo kaliya aan laga fiirin, xagga ugu adag oo kaliya aan laga fiirin, imtixaan mustawigiisu dhexdhexaad iyo heer sare oo iskugu jiro dhammaan inay soo diyaariyaan moogiye kama adkaan karo. marka laga yimaado maamulaha guud ee dugsiyada hoose dhexe sare ee Al-Cimra Cabdiraxmaan Cumar Maxamed waxaa sidoo kale goobtii ay imtixaanka wadajirka ah ku diyaarinayeen hadallo kala duwan ka jeediyay macallimiin kala duwan oo barayaalka ah maadooyin kala gedisan oo dugsiyada laga bixiyo. magacaygu waa Faadimo Xuseen Ibraahin oo ah macallimad wax ka dhigta dugsiga Al-Cimra Primary and Secondary School. iskuulka waagi hore imtixaanaadkiisu wuxuu ahaa mid qof walba gooni uu soo diyaarsan jiray. maanta maasha Allah horumar ayaa la gaaray. waxaan maanta u fadhinaa imtixaan midaysan oo dugsiyada Al-Cimra oo ku kala yaalo magaalada Xamar daafeeda kala duwan. isla markaana maanta imtixaankii waxaan ku diyaarinaynaa by grouping
koox iyadoo tahay waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay inaan barto wajiyo cusub iyo macallimiin cusub waagi hore imtixaanaadka la dejinayay waxaan aad ugu riyaaqsanahay maanta kan aan u fadhino isla markaana imtixaankan wuxuu noqon doonaa mid wax ku ool ah ardayda Soomaaliyeedna waxaan ka filayaa inay ahaadaan arday mustaqbal wanaagsan leh waxaan aad ugu mahadcelinayaa maamulkeena dugsiga ilaaha khayr ha siiye maamulka ayaa nagu dhiirigeliyay inaan maanta aan isugu imaano meeshan aan koox ahaan u shaqeyno isla markaan fikrada aan isdhaafsano annagoo go'aan wada gaareen hal imtixaan oo midaysanna ay laga wada qaadi doono dugsiyada Al-Cimra ee ku yaala daafaha magaalada Muqdisho marka waxaan leeyahay soo dhawaada hadsanidin xaqiiqda waxay soo kordhinaysaa faa'iidooyin aad u badan sababtoo marka laanta qaybta gooni ay imtixaanka u diyaarsanayso waxaa laga yaabaa in ayada si gooni ay u diyaarsato ama diiradda ay saarto jabtaro gaar ah laakiin marka imtixaanka guud u imaado waxa faa'iido u noqonaysaa dhammaan ardayda dhigata dugsiga hoose dhexe ee sare Al-Cimra ayagoo ka sii digtoonaanaya jabtaradii waxay soo qaateen taasina meesha waxaa ka imaanaya isfahan ka dhaxeeya macallimiinta iyo isfahan ka dhaxeeya dhammaan ardayda dhigta dugsiga hoose dhexe ee sare Al-Cimra maadaama dhammaantood ay ka siman yihiin ay ka midaysan imtixaanka laga qaadayay ay wada ogsan yihiin laan walba in imtixaan isku mid ah laga qaadaya marka muhiimaddu weyn waxay noqonaysaa in wada shaqayn ka dhaxaysa macallimiinta daraasooyinka ka dhiga iskuulasha iyo ardayda dhiganaya iskuulka madrasada dhiganayaba marka macallimiinta barnaamijyaashaas joogaan oo dhan maanta isugu yimaadeen halkan si imtixaan midaysan loo qaado oo imtixaan maxay to midaysan oo ardayda wada dhigata qaybaha kala duwan ee macadka hal imtixaan si ay u galaan marka saasa maanta halkan la isugu yimaaday insha Allah ta'ala waana arin aad iyo aad maxay to mabruuq iyo farxad u leh waana arin maxay loo baahnaa in maxay to la sameeyo waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maamulka barnaamijkan soo awoobay oo keenay in imtixaan centralized iskuulaadka ku midowga magaca Al-Cimra ee wada galaan qaybta baarta ee wada galaan oo intaan imtixaanka diyaarinin ka hor diyaarintan loo fadhiisanin ka hor nasiiyay khudbado aad iyo aad muhiim u ah casharo muhiim u ah oo looga hadlayay qaabka imtixaanka satellite-ka loo diyaariyo sidoo kale waxa mahad ballaaran ay u sugnaato oo mahadcelinayaa maamulka guud ee dugsiga hoose dhexe sare ee Al-Cimra الأستاذ عبد الرحمن عمر محمد isku dabariday suurtageliyay in dhammaan macallimiinta qaybaha kala duwan ee dugsiga Al-Cimra ay hal xarun ku kulmaan imtixaan midaysan ay diyaariyaan imtixaankan maanta aan u fadhino aan diyaarinayno waa ka duwan yahay imtixaanadii hore aan u soo diyaarinay maxaa yeelay waxa maanta kulannay macallimiin kala duwan oo qaybaha kala duwan ka wada imaaday hal imtixaan aan dejinay khaasatan aan ahaan waxaan dejinayay maadada biology-ga magaciigu saddexaan waa Maxamed Cabdi Isgow dugsiyada hoose dhexe sare Al-Cimra ayaa waxay ku yaalaan qaybo kala duwan oo degmooyinka gobolka Banaadir ah iyo gobolka Shabeellaha Hoose waxa wax ka barta kumanaan arday ah oo qaybaha kala duwan ee degmooyinka uga soo waxbarasho doonta Nasriin Maxamed Ibraahim Mustaqbal Muqdisho si sahlan ugala soco 89.7 FM Mustaqbal Radio warbaahin wax dhista